maanta waxaan ka soo qayb galnay shir looga hadlayay nagu cazumeen baarlamaanka Afrika iyo hay'adda la yiraahdo Open Society Foundation oo cazuntay ilaa 70 xisbi oo Afrika ka dhisan 70 xisbi oo Afrika ka dhisan oo isugu jira xisbiyada mucaaradka iyo xisbiyada muxaafidka ee Afrika oo isugu yimid inay ka doodaan waxyaalaha Afrika caqabada ku ah dhanka doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo sidii loo heli lahaa Afrika u heli lahayd dimuqraadiyad ama doorashooyin xor iyo xalaal ah uga dhici lahaayeen maanta waxaa laga dooday runtii xisbiyadii iyo baarlamaanada Afrika isku yimid anagu aan ka qayb galnay waxaa maanta aad looga dooday geedi socodka dimuqraadiyadda Afrika oo isugu jirta qaabkii loo heli lahaa arbitre xalaal ah oo loola jeedo electoral management bodies ka wax la yiraahdo ama doorashooyinka hay'adaha maamula ee madaxa bannaan say u noqon lahaayeen kuwa madax bannaan iyo runtii sidii loo heli lahaa jawi doorashooyinka aysan noqon Afrika ku noqon mid noqonaysa ama u xubsiibanaysa inay koox yar xukunka la cararto ee dadka qaarna majority-na laga saaro